kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan Facebook page-keena goal Manchester United oo haddaba loo sheegay inay adeegsato xeelad ama tacticadii Casemiro kadib diidmada Chelsea ee ku aadan Mason Mount oo markaasi qiimo ama lacago waali ah la dul dhigay balse intaan muuqaalku guda gelin saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkana like inoo saara mahadsanidin kooxda kubadda cagta Manchester United oo saddex dalab ah ay ka gudbiyeen Mason Mount ayaa laga diiday ayaa la soo sheegayba in ay raacdo qorshihii iyo xeeladii ee xagaagii hore kula soo wareegtay Casemiro oo waqtigaasi ay ku daaleen raacdadoodii Frank de Jong oo ay wax walba u bandhigeen balse dhabarka u jeediyay isla markaana diiday in uu ku biro kooxda ku ciyaarto garoonka caanka ah Old Trafford ee Manchester United ayaa muddo 100 maalmood ah waxay ka shaqeynaysay sidii ula soo saxiixan lahayd Frank de Jong balse dhamaadkii ayaa markii ay ka quusteen waxay u weecsadeen ama ay u jeedsadeen Casemiro ee si sahlan amaba si fudud uga soo qaateen Real Madrid iyagoo markaasi waqti badan ku lumin marka loo fiiriyo xaaladii oo kale ayay u muuqataa Manchester United in ay ku jirto waxayna Chelsea cirka ku laashay qiimaha Mount oo sanad kali ah ka harsan yahay qandaraaskiisa kaas oo bishan June ay saddex dalab ka gudbisay United balse diidmo cad loogu soo jawaabay isla markaana Chelsea ay diidan tahay in gabi ahaanba uu ka tago xidigeeda akademiyada kooxda Chelsea ka soo baxay ee Mason Mount oo ka mid ah xidigaha da'yarta ka ciyaara horyaalka English Premier League kuwa ugu fiican marka loo eego qadka dhexe Erik ten Hag oo si weyn u doonayo Mount sidii uu sameeyay xagaagii hore ee uu markaasi u dul dhigayba De Jong ayaa hadda ku qasban in uu ku qanco in uu jiro dooq kale oo ciyaari karaayo wargeyska ka soo baxa magaalada Manchester ee lagu magacaabo Men ayaa sheegay in Manchester United ay hadda u furan tahay in dadaalkooda ku aadan ay isugu geeyaan Declan Rice oo ay West Ham ku xidhay 100 milyan oo gini balse ay kula loolamayaan kooxaha Arsenal iyo Manchester City haddii ay u arkaan in qiimahaasi uu cuntamayo ay markaas u jeedsadaan Moses Caicedo oo sanadkii 2020 ee kaliya ku heli karayeen 6 milyan oo euro balse ka faa'iideysan waayeen fursadaasi Caicedo ayaa kooxdiisa Brighton sheegtay inay iibinayso waxayna dalbanaysaa 80 milyan oo euro iyadoo uu markaasi 12 sano jirkani boosas badan ka ciyaari karayo isla markaana qadka dhexe oo aan la loodi kareyn inuu markaasi uu ka ag ciyaari karo xidiga reer Brazil ee Casemiro isku soo wara duubay kooxda Manchester United ayaa waxay baadi goob xoogan ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd xidiga xulka Ingiriiska iyo kooxda akademiyada Chelsea ka soo baxay Mason Mount oo ka mid ah xidigaha qadka dhexe ka ciyaara horyaalka English Premier League kuwa ugu fiican iyadoo markaasi dadaal xoogan ku bixinaysa sidii gacanta ugu dhigi lahayd xidigan Ingiriiska ka soo jeeda Mason Mount